runtii waxaa kaloo ayagan ku bogaadinaya inay sameeyeen dhiirigelin oo ku saabsan inay dhalinyarada ciyaartooyda ay geeyeen xajka oo kale cumradii macnaha ay geeyeen dhiirigelin u tahay ayadan taasina waxa waaye way fiican tahay ka badan way mudan yihiin intaas xiriirkan waa ku bogaadinaya. Xidiga xul qaranka Soomaaliya 20 jirada ayaa waxay nasiib u yeeshay inay soo cimreystaan kadib markii ay ka soo hareen ciyaaraha Arab Cup Under 20 ee sanadkan lagu qabanay dalka Sacuudi Arabiya. Xul qaranka 20 jirada Soomaaliya ayaa siyaare iyo cumro u tagay Madiina iyo Makka iyagoo aad ugu farxay inay soo siyaartaan qabriga nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Xulkeena ayaa sanadkan wuxuu ka qayb galay ciyaaraha Arab Cup Under 20 iyagoo la kala ciyaaray xulalka kale ah Cumaan iyo Masar. Labadii kulan ee dheeleen waa laga adkaaday waxaana looga adkaaday celcelis ahaan 4 gool iyo eber balse waxayna tuseen inay yihiin kuwa mar walba u qalma matalista xulka qaranka maadaama ay soo bandhigeen kubadda ay cid walba jeclaysato. Xidiga 20 jirada ee xulkeena waxay rajo iftiimaysa tusiyeen baaweynta isboortiga iyagoo Sacuudi ku soo bandhigay kubad heer sare ah oo ay dhammaan taageerayaasha Soomaalida ay aad ugu qanceen. Dhammaan wafdigii la socday xulka waxay qayb ka ahaayeen shakhsiyaadkii xajka tagay. runtii waxaa kaloo ayagan ku bogaadinaya inay sameeyeen dhiirigelin oo ku saabsan inay dhalinyarada ciyaartooyda ay geeyeen xajka oo kale cumradii macnaha ay geeyeen dhiirigelin u tahay ayadan taasina waxa waaye way fiican tahay ka badan way mudan yihiin intaas xiriirkan waa ku bogaadinaya. Qaar ka mid ah xidigaha xajka tagay ama soo cimreystay ayaa ii sheegay inay ku faraxsan yihiin in markii ugu horeysay ay tagaan qabriga nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Dhabtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa cid walba oo ku lug lahayd inaan tagno xajka oo ay ka mid yihiin mas'uuliyadda xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Kuma fikireen in mar qura tago xajka balse Allah ka soko waxaan u mahadcelinayaa xiriirkii qof walba oo ku lug lahaa safarkan. Daadaan jiro waxay tahay 20 sano waxaan ka nasiib badanahay qaar ka mid ah asaagayga oo aan weligooda tagin xajka. Si niyad leh ayaan u soo duceystay anigoo ducada qayb uga dhigay in xulkeena guulo weyn ka gaaro tartamada ka qayb galayo sanadaha soo aadan insha Allah. Si kastaba ha ahaatee xidigaha xulka waxay weli ku sugan yihiin dalka Sacuudi Arabiya iyagoo maalmaha soo aadan ku soo wajahan yihiin caasimadda magaalada Muqdisho. Waxaan ahay Cabdi Fataax Cabdirashiid Abuukarnaani.